أنا waxaan aaminsanahay reer Djibouti reer Soomaaliya meesha doon hadda ganaadan iyo dawladii wali isma taaban isma salaam raggan maanta isla cabaadaya Muuse Biixi Ismaaciil Umar iyo maxaa dhada Xasan Sheekh naagaysa siinayeen isku dhisayeen laba sano ka hor dumar baa isku siiyay waa la isla fadhiyeen waxaan maalintii kelmadan qabtay waxay ka tageen shaqadoodii odayaal bay noqdeen oo dhaqaaleed wuxuu ku leeyahay nasiya kana wuxuu yiri waad heshiin kana gabadhu bixinaya shaqo kuma lahayn kana wiilku doonay shaqo kuma lahayn marka carabtu waxay tiraahdaa haddaad ogtahayna fatilka musiibatun haddaad ogayna fal musiibatu acdabu waa dawladda ragii qabsay oo yiri sidaan wax u arkayo u arka haddaad u arki weydiin waa qaldantii ma uriikum illa ma ara waxaan arkay oon arka fircoon baa yidhi kol oday kalo amxaara noo imanaya kol oday maaragtay carab baan nahay duriyatu maxamed baan nahay quraysh baan nahay halkan ka taagnayn oo maaragtay daarood ismaaciil iyo meeli ka garaaxaynay iminka dhalinyarada waxaad arkaysaa qofka dhan oo maaragtay maanta oo dhan iska dhigay carab imaamadii wala saas u qaadanaya khamiis yar buu ku dhajinayaa sidii carabtu u soconaya cadir baa dhiganaya waxani waa dhaqan abi jahalba waxaan uslan jiray abi lahabna uslan jiray guriga markaan iska imanno aqalka albaabka garaacayno hablo way naga yaaceen jaga meelay geliyo aqalama ma haynaba guriyo aqal afar daasada aqal halkee ku dhuuman kartaa miskiinada maxaa adeer la ordi xijaabkaaga iska xidho salaamu calaykum iska warad odagii ma jooga ha uu jooga ma jooga ma jiro khalaas salaamu calaykum ifadhiisi hadday doonayso shaysi nabiga cuntadooda cuneen maxamed iyo gabadh iyo maartay odaygeygii iyo cuntadooda cuneen inta aqal wada fadhiisteen adiga dhaqankii dhaqan kala soo qaatay oo baxsanaatri la sallallahu alayhi rasuulillah السلام عليكم ورحمة الله واد محسنتين قلب ونكسن صباح دوينا قدر ماته وحنجعلها انت عن بلابين موضوعها إن كهالله أرين مهمة وطبعا ليس وحان كهدي دون إن شاء الله أوكي أرين مهمة وحان كهدي دون طبعا ليس عن كوير بلابي دون أرين تاسوح ويا مركي قوميس ونويمت wuxuu shir la gali jiray odayaasha sidoo sheegay aqoonyahankii markii dhaweyto suldaanadu ka dhamaysan jiray wax la yiraahdo waana ilaalinayaa waxana waan siinayaa iyaguna way ogolaan jireen kadibna saasuu ku soo degi jiray waxaan la yaabay habeenkii dhaweydee Muuse Biixi ay kulmeen Axmed Abi sidii un bay ahayd halkii un ba taaganahay wax isbedel oo inagu dhacay ma jiro waxa weeyaan dad balan ku socdo nidaam ku socda iyo dad sugayay in dad nidaam u yimaadaan ba hadiya jeer kulmaya sidaas dhulkeena lagu qaadan jiray maanta lagu qaadanaya marka waxaan la yaabay oo isweydiiyay maxay noo soo biiray 200 oo sano hadii siyaasigeenu sultaankii 200 sano ka hor uu la aqli yahay oo meeshiina la fadhiyo maxay noo soo kordhay baan isweydiiyay habeenkii uu shir ku dhacay ama ay saxanayeen marka waxaan jeclahay inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan jalanjiyada amba taxadiyaadka ee nagu meersan Soomaaliya iyo Djibouti waxaan u qaybin doonaa labo kuwa gudaha inaga haysta iyo kuwa dibadda inaga imanaya laakiin culimada istiraatiijiga waxay dhahdaan jalanjiyadu had iyo jeer waa labo waa mid naajara oo dabiiciya oo adigu aad shaqo ku lahayn inaad ilaahay kugu abuuro meel baraf badan ama meel saxara ah oo wax ka soo baxay aysan jirin amba in lagu abuuro meel barwaaqo roobku kala go'ay sida meesha aan fadhino kale iyo meelaha Afrika bartamaheega adigu ma dooran waa iska xaragtay marka taasi waa rabbaani waa tabiici midna wax weeyaan bini aadanka sameeya jalanjiyada isaga ka imataa sida maanta ka dhacday dhulkeena oo annagu aan marinay wixii geel loo oranayay kadibna marna aan abaar la ooyeyno marna daadad iyo biyo naqarqiyaan la ooyeyno marka jalanjigu labadaas u qaybiyaan xidhadan waa tabiici amba waa rabbaani midda kale waxa jira lafaleeleyn jalanjiyadu lafaleeleyn lafal noocyeleyn koos waxa midda kubad ka ah waxa weeyaan waa midda la yiraahdo jalanji aanan ku dhibayn kana keensaneyn inaad shaqaysatid
waxaa dhacdaa challenge qofka siixiya مثلا wadannada bartamaha Afrika ku yaalo kale dhulka barwaaqada ah oo xataa cambadii iyo geedii barwaaqadaha ay si waxshi u baxayaan qofka shaqadii ma shaqaysanayo waxay ka dhigtaa qof iska fadhiya challenge ma dareemayo waxa dhacdaa mustaqir mid kale waxa dhacdaa challenge qofka dilaa challenge qofka dilaa waxa kamid ah kuwa wadannada askiimowga kale dadka haysta qofkii horumar ma gaari karayo waxa ka adag anaka Kanada kale waxa jira meelaha dadkaasi degan yihiin oo noloshii ay la falgali kari laayeen noloshii baa ku xoog badan way ka adkaatay ka saddexaad waxa dhacdaa ka keensan karaya inaad horumar samaysid waa midda ku kalkilinaya ee ka cadhaysiinaya ninka dhigaya ee ku dhaqaajinaya challenge-gaasi baa muhiim ah anaga markaa waxaan eegi doonaa kana haysta mandiqadeenu waa kee saddexda ay culimada istiraatiijigu u qaybiyeen maka baqtiga ah oo qofka iska hurdaya maka ku kalkilinaya ka cadhaysiinaya mise waa ka ma aragtay ku dilaya okay walbaabka ka galayna weeyaan xagga istiraatiijiga challenge-dan haystaan waxaan u qaybiyay labo dibadda iyo gudaha waa soo koobaya lix baa gudaha inaga haysata ta koobaad ee gudaha inaga haysata waxa weeyaan waa challenge-ga la yiraahdo inaan fahansanayn inaan wali aan gaarin mafhuumka dawladnimada dawladii maxay tahay shaqo isku malin wali inaan been isku sheegno ma anu waxaan aaminsanahay reer Djibouti reer Soomaaliya meesha doon hadda ganaadan iyo dawladii wali isma taaban isma salaamin dawladnimada waa meel la gaaro ma aan gaarin markaasi taasi waxay noo keentay inaan marka aan dawlad helno ay noqonayso wax qofku leeyahay sharikad ay noqonayso shakhsiga uu qaadanayo oo geeli aan lahayn iska noqonayso dawladdu marka dawladihii hore uu qofku lahaa ayaan dhawtay waxaan ka fikirayaa oo guriga fadhiya raggan maanta isla cabaadaya Muuse Biixi Ismaaciil Umar iyo maxaa dhada Xasan Sheekh naagaysa siinayeen wax isku dhisayeen laba sano ka hor dumar baa isku siiyay waa la isla fadhiyeen waxaan maalintii kelmadan qabtay waxay ka tageen shaqadoodii odayaal bay noqdeen dhaqaaleed wuxuu ku leeyahay nasiya kana wuxuu yiri waad heshiin kana gabadhu bixinaya shaqo kuma lahayn kana wiilku doonay shaqo kuma lahayn hatta wixii dhan la qaldaya kuwii sida isku siisiinayba laba cisho ka hor bay isla fadhiyeen haddana cishadii saddexaad waxaan aragnay Muuse Biixi ka dhaadhacay magaalada Addis Ababa oo badii bixiyaba labadii dhinac kalena way caroodeen bay ka xabay soo badda u bixinaya oo ma ogeyn ma ogeyn hadda ogeyn wada qanbata hadda ogeynna waxa ma tihid waa labada midkoodu waxa mukhaabaraad baan leenahay sirdoon baan leenahay dawladaan leenahay dawlad dadka islaanta yar oo baagiyaha iyo nin caybinaysay iska hor fadhida way dhageystaan waxay ku sheekeynayso waxay garan waayeen inuu Muuse Biixi ku socdo Addis Ababa oo soo saxay heshiis garan waayeen خاصة دولة إنكم بتقنين رجع وديه اسمع العمر قال لي بقول كي بس ديت المشاركة ضد كلا حولوجا سير بحكم بحيا وردان يا سردان محوق قهوة هي إنه مسابيحي هل كأول شيء صعده مركز سوا بحاسوا بداسم مركز عرفت واحد ترى هذا هداد أكت هنا فتلك مصيبة هداد أجينا فالمصيبة أعظم هداد أجين مصيبة بكيس يوين ببالج مركز تاسيوا أرتب دولة المدو واطاس هل كاسي إنك تاجنت هاي واحد هذا dawlad waa problem ka weyn in haysto mushkiladda labaad ee gudaha inaga haysata waxa weeyaan walaalayaal marka u fiirsatiin dawladnimadii inaga burburisay waxa loo yaqaano sidii loo heshiisiin lahaa wuxuu Ilaahay inaga dhigay iyo waxaan rabno Ilaahay wuxuu inaga dhigay reero wajacalnaakum shucuuban wahid wa qabaa'il Ilaahay baa naga dhigay marka dooranay may dawladnimada anaka dooranay inaan dawlad noqon anaka dooranay sidee u heshiisiinaa labadaas waxa nahay iyo waxaan rabno aku fashilanahay lixdan sano waan ku fashilanahay inaan sameeyno waxaan rabnay laakiin waxa ka adag waxaan ahayn baa ka adag saadaradeed baan dawladii aan dhisnay bay dumaysaa waxa duminaya waxaan nahay liana waxaan ka guuri kari laanahay xaaladda anu waxaan u bixiyay xaaladda reernimada waa xaalad xayawaaniya soo xayawaanku reeramaha geel iyo lo iyo ari iyo xayawaanimo xayawaan laakiin dawladnimadu waa xaalad insaaniya waa xaalad bini'aadanimo ولذلك waxay yiraahdeen culimadu abqarinimada raganimada bini aadamku meesha ugu sareysu gaadhay wax weeyaan inuu dayax tagay ma inuu dawlad sameeysto waa inuu dawlad sameeysto marka aan Canada ka baxon baabuur dhex wato oo ilaa Mareykanka iska tagayo oo qofna ilaahay waxa dhahdaa waa dawlad baa la sameeyay meesha Europe baa markaas markaa dawlad la sameeyay China muxuu sameeyay dawlad u sameeyay Japan waa dawlad annaka maxaa naga fashilan dawladda naga fashilan
reerkii baa ka adkaaday dawladda reerkii baa dumiyay dawladda waxna taasna challenge kala badan ay saddexaad aniga challenge ka saddexaad ay nahaystay waxa weeyaan walaalka ka hadlay wuxuu saddex cadow ma leenahay Axmed Abi iyo Muuse Biixi iyo muxuu dhahay shabaab anigu ma aaminsani shabaab inuu yahay challenge adag shabaabku waxa weeyaan waa cudur weeyaan shabaabku cudur ma aha waa santoonki cudurka inuu cudur jiro maxaa ku tusaya shabaab ku tusaya muxuu yahay cudurku waa labadan waxa weeyaan cudurka la yiraahdo sidaan diinta u fahmay u fahan haddaad u fahmi weydid gaal baa tahay ma shabaab baa saara bisawdaad u basaayta badan yiraahdo wadaad u badan anu waxaan jecelahay dadku inay saan diinta anu u fahmay inay u fahmaan haddii u fahmi waayina way qaldan okay taas waa mid koowaad mid labaad waxa weeyaan waa dawladda ragii qabsay oo yiri sidaan wax u arkayo u arka haddaad u arki weydin waa qaldantii ma uriikum illa ma ara waxaan arkay oo arka fircoon baa yiri iyo talabaad wadaad kule la annagu waxaan ahaan jirnay shaaficiyo waan ka baxno waxaan noqonay xambaliya goorma noqonay annagu war isku hayn imikana maxaan ku soo noqonay shaaficiya haddana berito xambaliya suufiyaan nahay salafiyaan nahay kana nahay waxa uu baa keensanaya marka ugu dambaysa hadii laakiin la bislaado oo la gaaro soo imaam shaafici waraan raayigaygu waa sax laakiin uu qaldami karaya raayiga Axmedna wuxuu yiri raayigaygu waa sax laakiin waa qaldami karaya markaan halka gaarno shabaabku waxay noqonayaan wax aanan waxba tarin iska baabaayaan shabaabku waa fikrad shabaabku waa cudur fikradeed ee maaha cudur hubsita maaha midda kale halka dambe inuu ugu imanaysaa shabaabku waa sinaaca wax la sameeyay way shabaab inta la sameeyay naloo keenay annaguna daacish yaa sameeyay daacish in ka martay daacish ma baqashay daacish hadda ma jirto ayaantii dhawayto dagaalka Gaza uu ka dhacay waxay yiraahdeen sidii daacish baan Xamaas u baabiinaa laakiin Xamaas daacish maaha Xamaas waa ka culustay daacish waa fikrad waxa lama baabiin kari Xamaas imika muxuu madaxweyne Biden ma ugu damaysay lama baabiin karayo muxuu yiri sidaas wuxuu ogaaday in daacish ay Xamaas inay kala duwan daacish waa la sameeyay laakiin Xamaas lama sameeyay okay shabaab waa la sameeyay ayaanta la rabo in shabaab la tirtirana waa la tirtiri doona yaa tirtiri doona kuwii noo sameeyaa tirtiri doona kuwii noo sameeyana waxay fadhiyaan dhinaca kale ka fadhiyaan baddaas ya dhinaca kale baddaas ka fadhiyaan kuwa bay noo sameeyay kuwana waa loo soo dhiibay si loogu mashquuliyo marka ina shabaab wax weyn ka dhigeen shabaab wax weyn u arko waxaan arkaa cudur yar oo dhow laakiin cudurku waxa weeyaan waa tadarrufka siyaasiga iyo diiniga waa xadjirnimada diiniga iyo siyaasiga waa cudurta waa challenge saddexaad afar challenge afaraad ee haysta wax weeyaan ikhwaani fillah annaku markaan gudaha isla fadhino waxaan lahayn hab aan u noolayn habkan u noolahay waa la evolueyaa may waan guurnay waxaan u guurnay hab aan lahayn habkii aan u noolayn waa ka soo guurnay mid aan lahayn baan u guurnay dhaxdiina ma jirto walidaalika qofka Soomaaliga marka u fiirsatid imika waa imsa waa saddex Soomaali هليا بينيا أنا مركي قاركو أنا أسكن مضرفة وحاجة الصومالي يوروبيانا صومالي عربة يا صوماليا صومالي يوروبيانا هاجر مركو فكرة ويوروبيان حكوا لي هذا هو مرينا قالنا ضمن إنه هالمريكانو سان فرانسيسكا هنفكرنا طلياني هنقرنا إنجليز هنقرنا هذا من هندي لهن نجمدين ما نقرنا صار بقى صومالي كلاجرا حكوا لي ورد أنكو أصل كين وعرب واللي بيكون حد عدي مرتين waxaan hala garin lahay kol oday Oromo noo imanaya kol oday kalo Amxaara noo imanaya kol oday Arab baan nahay duriyatu Maxamed baan nahay Quraysh baan nahay hadan ka taagnayn oo maartay daarood Ismaaciil iyo meeli ka garaahayne oo baaldhimay wax ma jiraan dir Oromo la noqday way wallahi qaybta khalaas wargaasi waa maxay Soomaali maxaan ku yiri Arab jira Soomaali waxa jira cadaana iyo Soomaaliya marka anu waxaan rabaa inaan soo noqono dhexda ku soo noqono waxaan ahayna ku soo noqono arabta diintan wadaagna gaalkana bini'aadanimada wadaagna lika cadna bini'aadanimada wixii bini'aadan ka dhaxeeyo naga dhaxaynaya islaamku wuxuu naga dhaxeeyna lika carabtu naga dhaxaynaya inta kale naga dhaxaynaysa adeer ولهذا baa maartay waxaan rabnaa imika dhalinyarada waxaad arkaysaa qofka dhan oo maartay maanta oo dhan iska dhaxay arab imaamadu rasaas u qaadanaya khamiis yar buu ku dhajinaya sidii carabtu u soconaya cadir baa ka dhiganaya
waxaan waa dhaqan abi jahalba waxaan u jiray abi lahabna u jiray waxaan waa dhaqan adeer diin ma hada doonaysa dhaqankii gudhatiga qaadade anagaas yahay dhaqanka galbeedka gudhatiga go'i qaadade waa ka dhaqankeenu waa ka khamiiskana waa iska qaadanayna waan la wadaagnaa shamiishka shaarkana waan qaadanayna waa biladana keentay laakiin ha iga dhigin waxaasi wax aan dadka kale ka duwanahay gabadhii baa laba ah gabadh baa jirta rag galbeed bay noqotay gabadhna carabeed bay noqotay beriga anagu dacwadii diinta bilowday guriga markaan iska imanno aqalka albaha garaacayno habluhu inaga yaaceen meelay geliyo aqalaba ma haynaba guryo afar daasada gala halkee ku dhuuman kartaa miskiinada maxaa adeer la ordi xijaabkaaga iska xidho salaamu calaykum iska warad odagii ma jooga ha uu jooga ma jooga ma jiro khalaas salaamu calaykum ifadhiisi hadday doonayso shaysi nabiga cuntada wada cuneen maxamed iyo gabadh iyo maartay odaygeygii iyo cunta wada cuneen inta aqal wada fadhiisteen adiga dhaqankii dhaqan kala soo qaatay oo baxsana tiri waxaas diin ma aha marka dhinacii kale tan qaarna habliga waxay noqdeen habla cadaan u fikiraya laba hablood baan haynaa laba wiil baan haynaa dhaqankiina waa dhibaato weyn oo indhaajto waa taxaddi weyn taxaddiga shanaadeen haysta wax weeyaan meesha milo siyaasiyiin la ima ogolo waxaan haysta waa jaadka taxaddiga shanaadii waxa weeyaan waa qaadka weeyaan runta ma rabna ha Soomaali ma soo toosaysa ilaa geedka qaadka ka tashato annaku diraasan ku sameynay maartay Djibouti dadka dhalinyarada ah boqolkiiba 80 way qaadayaan waxay cunaan qaad taqaanaa subaxa waxa la cunaa duur dibadii saqdar waa la cunaa habeenkii qofka goorma shaqo tagay diraaso aan hayo waxay sheegtaa dadka adduunyada waxa lagu tartamaa saacadaha la shaqeeyo Soomaha imisa shaqeeyaan waddanka imisa shaqeeyaa markii ugu dambeysay waxa la soo gaaray darada carabta waxa dhigay khaliijku waxay shaqeeyaan 50 daqiiqado ma arintii 50 midho Suudaan 7 midho ba shaqeeyo 7 daqiiqo markaa ma Djibouti Soomaaliya imisa la shaqeeyaa 0 man 0 xafiisada xamar taga iyo Hargeysa iyo Djibouti tobanka la soo galaa ya raiisul wasaaraha la fadhiyo dadka ma shaqaysan karayaan way hurdaan bajaadku wuxuu leeyahay dhibaatada caafimaadka iska daa kansar baa laga qaadaa kansarkii daanka kii maarata carabka kii hunguriga ka iska daa da'dii soo yareeyay 45 konton dadku way wada gaboobeen jaalaan jibhayna waa istajaadka qaadku waa dilaa weeyaan imigana muqaddaraadka kala ku biireen khamrigii baa Itoobiya waxa noo yimaadaa anwaacdiisii oo dhan maxaa loo jeeyaa يا تجد بالرخيص وانا دلاء ردوا عبيا ونوغيا waxaa jira screen dad waaweyn wadada qaarkood geeskeena Afrika screen dad ma taqaana waa isagiyo de screen waxa laga soo dhigay waa la soo barifay baalkii marka sanaadku kale hooyo screen dad waaweyn iga iibi screen baad u moodaa waa inantii dajadi weeyaan askari waa dajadi wax cabay qofka taasina waa maxay waa ka ugu dambaysa jalanjiga ugu dambeeyo anu aan islaahay guduhu inaga haysta halka gudaha inaga haysta wax weeyaan adduunka waxa jira dad yar oo hogaamiya dadka badan adduunku waa sida laba meel baan tusaya Mareykanka waa shacab 400 milyan ku dhow imika dadka hogaamiya waa 60 kun oo qof 60 kun oo bini aadana Ameerika hogaamisa Hollywoodka fadhiyaan Congress-ka fadhiyaan lacag leeyihiin mufakiriin bayhiin han tagtan baa lagu sheegay Fukuyama lagu sheegay Kissinger lagu sheegay dadkaas la dhageysan qofka isla ma dhageysto dadkaas hogaamiya dadka inta kale wala riixaya inta kale ka shaqo tagaan marka su'aal ma ka maqan elite ba ka maqan labaantii waa tamaanta doctorkii Abdullah iyo uu sameeyeen tiktanka waa wax loo sameeyay waa inay jiraan dad elite nuqba ah alabaan ah dadka hogaamisa laakiin barbareega Soomaalidu waa maxay barbareega Soomaalidu wax weeyaan kulligeen waxaan nahay elite baan isma hogaami karaan markaas isma badhigaysanaba wuxuu sheegayaa amba sheeg karaa muxuu ka hadlay amba ka hadli karaa muxuu qabanaya amba qaban karaa muxuu yiri amba oran karaa muxuu qoray amba qori karaa kulluna خلاص isku baan noqon marka taasina waxay keentay waa jalanjiga ugu culus ee naastaan halkii aan taaganahay wax weeyaan ma jiraan dad looga haray aqoonta iyo isbedel sameynta dadka baana sameeya intaas waa tii gudaha dibadda aanu imanaa saddex baan ka soo dhigay
جلانجيga koowaad dibadda inaga haysta waa juqraafiga weeyaan political juqraafiga weeyaan waa dhibaato culus oo aan fahmi laana ilaa maanta nin baa jira aan aad u akhriyo caraba oo dhada Jamaal Hamdan waa Masri weeyaan wuxuu ku takhasusay juqraafiga siyaasiga nadareed buu baleeyay dawladdu waxay ku duntaa juqraafiga waxayna ku noolaataa juqraafiga taas fikradda waa masay waa teori ku soo leeyahay teori gaabaan qaaday waxa ay wuxuu Masar buu ku qaatay wuxuu Masar laga ka dhiman kartaa wuxuu Masar waligeedna badda Mediterranean laga dilin dhinaca Liibiya iyo Afrikana lagama iman laakiin Masar waxay ka cabsootaa Niilka iyo dhinaca maarta Palestine labadaaba waligeedba loogeema jiray labadaaba laga dilaa labadaaba juqraafiga ka sameeya Soomaaliya juqraafiga maxaa sameeya qofka Soomaaliya juqraafiga maxaa sameeya anu waa labayna waa badda oo fahmi laana badana dul fadhina bad caadi maaha waa bad dunida isku haysato marka laga yimaado badda casba mid laga soo bilaabo ila Indian Ocean iyo Ethiopia amba diida amba doona waa labada challenge juqraafigan waa ka Ahmed Guri dagaalkii u qaaday Ethiopia ku qaaday maxaa soo ceshaday buurta soo celisay weligeed Soomaali iyo Muslimka buurtaas way kori kari waayeen Abasiniyana weligeed badda way ma kari waayeen iyaduna badda waan u diidnay iyaduna buurta way noo diiday okay maxaa dhacay maanta adduunku wuu bislaaday biseelkaas wuxuu keenay inaan buurta nabad ku tagno iyaguna badda nabad ku yimaadeen ma xoogina ku qasaan ay qasaan dad baskala badda annagii markaa waxa imika inoo taagan baddeeni ma noo badbaadaysaa mise noo badbaadayso baddii ma badbaadaysaa mise ma badbaadayso ayaan dad markaan ka hadlay mid baa waraqad biyo soo qoray wuxuu sheekh inuu bareejo baddii waa dibisay buu waxaan arkaa Hargeysa nooga haysta baddeeda waxaan ku yiraahdaa ku bad ma iibin markii imaaraadka uu la galiyana anigii ninka saaxiibkay Britain Daara badda war bandar murga waa arkan baddiyo la iibiyay markii dambana labadii iska laalaado baan baddeedii waa ka soo ceshanay inuu naga qaataan bi dooneen oo markii hore badda inay qaadaan mid arkay biya ma arkay markii hore marka anaku waxaan rabnaa waxa weeyaan baddaasi waa problemkeena weeyaan waa arinta koobaad juqraafiga in haysato weeyaan arinta labaad taxadiga labaad aad buu adag yahay taxadigaasi waa challenge annaka inoo gaara iyo Afrika iyo Carabta iyo Muslimiinta oo ay bataqaan waa imaaraadka weeyaan waa challenge gaara weeyaan imaaraadka waa inaan isku waafaqno waxba inaan u arkay imaaraadka dawlad caadi ah iminka inay bay weydiinay dawladda imaaraadka horta maxay doonaysaa dawladda imaaraadka waa saddex dawladda imaaraadka waa dawlad wadiifiya shaqa loo xil saaray ragga adduunka xukuumay shaqo u dhiibeen shaqadii way qabataa way ku darsatay intii loogu talagalay maaha in bay ku darsatay intay ku darsataa ka badan intii loo dhiibay dadku waxay dhaheen qadarna shaqa loo dhiibay laakiin qadar shaqa ku darsato dhinac yaroo positive ku dartay waxay tiri adeer soo ma rabtaan inaan inii shaqeeyo annadee waan shaqaysanay oo maxaa ka shaqaysanay dee muslimiinta waxbaan u qaqabanay carabta waxbaan u qaqabanay adigana waan kuu soo shaqaynay كان يقول هذيك أنا أقول شقيني لكن وحنا كل شقيني إيش هذا صار ماشي إنك بدل بقمني وحنا وان كدر سني بدل ولذلك نيل هذا مفكر استراتيجية نفيسل هذا الكويتية هي مرة كل ما بدحوينها إمارات جزائر وحكى صار نقضيها إدمال هذا أفغانستان وحو صوت دوني وحنا مرة قرقر كي يحبوا يأدوا جعليه مركب وكيل هاي كيمتي حول وحنا سو إنديني إذا ماذا إمارات كوسة وقد تقالمين أفغانستان كوديجا مركب وحول أضيق أضو كفتما وحول والله كبرت العيال والله كبرت العيال بالعيال كم وينادين بولي وحن سو إنديني يقولي قالوا مريكا نقضي يا روسيا يا فرنسيسيو وحن سو إنديني إذا ماذا أفغانستان جوجا سيد أو تقال كلام marka ninkan gorgor ba kugu ogeyn inaad u gaarsiisay indhay kugu ma ogeyn markaas ay bilaabatay baashi badda ujeedada uu kale yahay badaha waa saddex arrimood number 1 badda wuxuu kale ujeedadiisu in uu isagu gacanta ku dhigo badaha dunida oo dhan 67 wadan buu gacanta ku hayaa marka badoogi labo 40 wuxuu leeyahay dikadood sagaale صدح تضرب بقول أو كن أو مركبات دوني ذا كدقاقة أيوه رأى بقول كي بشان يطبن حاولها ألعبت لقو قاضو إمارات على شركة دبي بالله ما إمارات معها
مواني الدول العالمية شركة دبي بالي أنت مركز لقي ما دوح وليه صدح مدون بوركو إنه سوقله إنا أنو هايو إيه إنه إجت إدافين أو ترتك إلى جلين ولو كودو دو صدح إنه بربرو واحد حي مجرم مركز عنك كوي أقولادي وحوليه بباديان كوي أقولان وينا وبربرة يعني waxa burburka laga galiyay ma baa la galiyay marka inuu wal burburiye Suudaan wal burburiye ninka raad xamiidtii dagaalamay Suudaan iska sameeyay ninka xaqana uu burburiye Djibouti maalinta iskhilaafeen ay kala xamaan qaateen kalmad buu yiri wuxuu marka aan maxkamadaha dhameeyo waxaan ku celin doonaa wadanka yareen ka soo saaray meel gaajo ah qarniyadii dhexe qurun wasta manashki in ku celin doonaa marka imaaraadku talabada wataa doonayso arrinta saddexaad imaaraadku ay استراتيجيين ay doonayso wax weeyaan in ay shaqo weyn la shaqeysato wadanka Israa'iil iyada la shaqeysato iyada la saaxiibo marka ana hawlan ku qabanaya adiguna hawlay qabo baa la isku dhaafsaday adduunka meelaha la isku dhaafsaday tan kamida challenge-ga saddexaad ee adduunka naga socdo waxay waana la qaybinayaa Somaliland waxaan ka cabadeynaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya diraasad aan maadhood akhriyay waxaan loo qaybinayaa 5 gobol Soomaaliya 5 baa loo qaybinayaa Djibouti ma qaybtami kartaa waa la qaybinayaa Djibouti laba loo qaybinayaa yaa qaybinaya waxa la yiri adduunka Afrikaanka iyo Carabta dib dambaan u eegaynaa shaqadooda gaar ahaan muslimiinta waxaan ka dhigaynaa 84 wadan 84 wadan 84 wadan waxa kamid ah Suudaan shanaladi mid way baxday koonfur Suudaan afarna imika la qaybinayaa waxa dhigay Soomaaliya geeska Afrika ma naga booday waxaan ka dhigaynaa afar baan u qaybinaynaa afar gobol oo afar qabiila ayaan kala qaybinaynaa Djibouti waxaa dhigay laba ka dhigaynaa Soomaaliya afar ka dhigaynaa waan qaybinaynaa istaraatiijiyada xitaa Itoobiya hore uga qayb gashay okay qaybistaana la qaybinayo waa khuddo aan ogeyn oonan ka warhayn waa challenge adag ina qaybistu ay socotana maxaa ku garanayaa laba shay bay tusaysaa dhammaanteen maalintii doorashada habeenkii dhooto Saciidani Ilaahay ma gama ka taariikhdeena Saciid ma ku soo baxay madaxtinimada doorashada dadkeenii oo dhani waxaad moodaysaa inay dawlad weyn oo baalka dhacday oo baad moodaysaa Somaliland saas oo kale to Jubaland Maxayland wadalaandada ma noqon moogtahay laandadaasi waa waxa uu yiri Malla Zinaawi Soomaaliya ha ula dhaqano reero ina ula dhaqmin dawladahan wuxuu yiri oo kaleeto Soomaali oo dhan baa sidaa xataa Djibouti marka la dhaqmayno reer ahaan oo dhaqmayno qabiyaarad baan ku dhaqmayno marka challenge-ga in haysta wax weeyaan waa taas weey in la qaybiyo annagoon ogeyn maxaan kaga baxaynaa bas laba kalmo baa gabagabay waxaan soo ka baxnaa waxaan kaga baxaynaa habeen dood baan iyo nin saaxiibkay waxa la aqrinay kitaab nin Daawud Ogol uu qoray ninkii wasaaraha kan jiray meeshani Turkiga wuxuu qoray 30 sano ka hor intay dawladda galin wuxuu qoray kitaab u bixiyay في العمق الاستراتيجي استراتيجي هنو فوقانو وهنك فوقانا أركت سطحيقا مرة waxaan ku bixi karnaa inaas yeelano aragti istiraatiiji oo ka baxno sheekada caadiga ah لأن الشقة إنه قصة عطمة شقة عادية ما شقة عادية مركا واحد كبيح كرا ضد استراتيجي أو فكرة والله لمبر متاسي لمبر 2 وحنا كبيح كرنا أريتاسي ضد كإليت كا تكتان كانوا كل شقينا يا إني برنامج صوب بديان برنامج ضد كوبايين ولا قد علي ما عرفته الشركة دي عادية هيد بانك سود علي بقول سنة واحد ولا صوبضي هرمادي كان ولا صوبضي وسوق عياري إنه وسوق قبيه إنه وحاسي معنا ماله وح أركتي أو عصب هلا إيمانه ونمدينا وبندقنا أي كوب باديس إن شاء الله تعالى وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ubadkoo yaraanta lagu bara asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna carruurta ka caawinayaa casharada guriga ama homework
hadduu yahay Kenya system, British system ama American system. wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4. waxaa sidoo kale carruurta laga dhisayaa quraanka kariimka iyo culumta islaamiga. Caasha iyo Cabdow calaalka daaya oo carruurtiina la gaaraha idinka cajabiye. wixii faafahintaasi dheer kala xiriir numberka shaashada ka muuqda. haddii aad caajisto maskaxdii ku cuslaatay cilmi iyo aqoon iyo casharkii xifdin weydii carruur iyo ciroolaba meel loo cararo dadkii wada caashaqaan caawaba ku haya. waxaa dhammaan dadweynaha loogu bishaaraynayaa inuu jiro tababar online ah waana seminaar ku saabsan dib u xoojinta awoodda maskaxeed iyo kordhinta xifdinta adigoo ku qaybaya in ka yar 5 daqiiqo sidoo kale dib u soo hanashada wixii aad horay u xifdisay muddo 2 daqiiqo gudahood waana arrin takhasuskeedu yahay dardargelinta iyo labalaabidda xifdinta quraanka kariimka iyo waxa la midka hadafka seminaarkan ayaa ah in laga gudbo caqabadaha hilmaamka xifdinta ku baraarug la'aanta mahsanaanta itaaliyarida maskaxeed iyo yaraynta celinta taasoo la damaanad qaadayo 100% waxaana tani qiraya dadkii hore ee ka qalin jabiyay tababarkan waa mid online ah adigoo gurigaaga jooga ayaad ka qayb qaadan kartaa barta Zoom meel walba oo dunida ka joogto adigoo si toos ah ula soconaya tababarka mowduucyada ku saabsan tababarkan waa akhrinta quraanka kariimka axaadiista nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee luqadaha manhaj waxbarasho iyo waliba xifdinta mutuunta iyo gabayada heerka tababarkan waa ilaa 12 level 12 heer oo xifdinta kitaabka laga akhrinayo 12 heer oo ah xifdinta dhageysiga iyo 12 heer oo ah akhrinta degdega ah waxa ka faa'iideysan karo dadka idadoodu u dhaxayso 6 sano ilaa 85 sano rag iyo dumar muddada la qaadanayo tababarkan waa 77 saacadood isdiiwaangelintii way socotaa haddaba ka faa'iideyso wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xardhan ama booqo barta internetka ee www.aqliyad.com